runtii inta heesta qaranka ayuu noo diyaari doonaa oo dabcan aan rajeynayo in marka heesta qaranka ama astaanta qaranka Soomaaliyeed la qaado in fadhiga laga wada kici doono insha Allah si aan u muujino u weyneyno maalintan qiimaha badan xorriyada gobolada koonfureed ee dalkeena Soomaaliya waxay ku beegan tahay kuma beegna xero kaliya laakiin waxay ku beegan tahay maalinkii ay qaateen xorriyada gobolada koonfureed ayna midoobeen gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi ee Soomaaliya marka waxay ku beegan tahay kooda iyo dalkooda waxaan leeyahay wanaagsantiin waxaad tin u wixii dalka waxaad tin maskax caafimaad qabta waxaad tin dad soo karay oo mental ahaan rabo inaad ku bedeshaan waddankeena Soomaaliyeed sida wada ognahay dalkeena Soomaaliyeed 30 sano oo hadda la soo dhaafay wuxuu ku jiray burbur dagaallo sokeeye qabaa'il marka waxaan rabaa dadkii bedeli lahaa maskaxdii la rabay inay bedesho oo dib uga shaqayso waa intaan meesha fadhida in la mida wax baratay iyo waddanka hadda jooga marka waxaan rabaa inaan hal talo oo yar ama hal su'aal aan weydiiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan maanta oo kale iyo maalmaha la midka maalinka 26 Juun 1 July maalmaha kale xorriyadda dhammaantiin waxaan nahay wadaniyiin qof kasta caalamku soo qaataa gabdhuutaanka ku soo sawirtaan wiilasha jaakada caalamka ay soo xirtaan laakiin sida aan u muujino maalmahaas haddii dhammaanteen qalbigeena aan ugu muujin lahayn dhammaanteen inteenaas oo dhalinyaro maskaxdeena aan u kaashan lahayn sida baraha bulshada aan ugu muujin lahayn qulubteena u tusi lahayn dalkeena xaqiiqatan waxaan aaminsanahay inuusan maanta dalkeena taagnaanin meesha uu taagan yahay oo imaan lahaa isbeddel ballaaran imaan lahaa wax kasta oo horumar ah marka waxaan leeyahay dhalinyaro waxaad tihiin dad soo koray dhammaantiin aqoon-yahanaad tihiin waxaa u badan tihiin arday dalkan wax ka barataa marka waxaa rabaa aqoontii aad dalka ka barateen iyo wixii aad barateen inaad dalkii dib ugu celisaan jiilasha soo koraya iyo odayaasha hadda waddanka gacanta ku haya sidaan wada ogsoonahay dalkeena waxa hadda uu ka fariisanaya ama burburka iyo dhibaatada hadda waddanka ka socota ama horey uga jirtay waa above 60 above 50 marka 90 dhalinyaro ama 100 dhalinyaro oo maskaxdooda caafimaad qabto oo wax bartay aqoon-yahanaa miyaysan bedeli karin 30 oday ama 40 oday oo qabyaalad iyo burbur waddankeena intaas sano ku soo waday anu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan hadday isku kaashato waxayna miday waa arrinkaas dhammaanteen haddii aan isku kaashano inaan waddankeena wax ka bedelo dhammaanteen haddii aan ku tashano inaan waddankeena wax ka bedelo reer hebel xagga iska dhigno oo malaynayo qof maanta meeshaan ku yimid reer hebel dhexe oo malaynayo qof meeshaan maanta ku yimid reer hebel dhexe ma weynaynu jirto laakiin qof walba wuxuu ku yimid xaflad Soomaaliya oo 1 July dhammaanteen ku imaan jirta marka sida aan ugu muujinayno yeesayna ka noqon raace ay noqoto wax dhab ah oo qalbigeena jira dhammaanteena caqligeena iyo maskaxdeena intaan kaashano aan dib u milcisano qabyaalad dhibaatada ayna gaarsiisay meesha aan joogno dal baan maanta marti ku nahay ma aaminsantiin haddii waddankeena uu 30 sano dhisnaan lahaa horumar balaaro annaga ayaana noo sadexaysi lahaa maanta waqti dalkeena waa wada marti waa wada qaxooti waa wada taariikhyaal وران السلام عليكم شرفت ardayda مسؤولين Turkiga ka socota qof walba uu ogyahay inuu ku dharagsan yahay maanta yani ujeedadu intuu fadhiyo asoo joog waliba dal shisheeye maanta waxa maalintii gooda luuliyo yani waa maalin nagu weyn Soomaalihan marka loo fiiriyo waa maalintii ay go'aansadeen dadyoogii 13 nin SYL inay dhigooda noo huraan waa maalintii hooyo ee weyse wiilkeeda xaas ee weyse ninkeeda gabar ee weyse walaalkeeda yani maantaas way kala duwan tahay maanta inaan faraxno ama dala shisheeye aan usoo dalxiis tagno ama waxbarasho u imaano waxaa ka dambeeya isdhihi karaa 13 hal marna waxaan iga codsanaa inaan u duceysiin inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdawsa ka yeelo waayo sababtoodaan ku joognaa intaas kadib waxaan leeyahay qalinka aan wadano iyo qalinka hore dadkaas ay wateen kaafi kalbeeriya u dhaxayso maanta waa ka tadan badannahay waa ka aqoon badannahay waa ka maskax badannahay waa ka maal badannahay haddana quality-ga nagu yar anagoo maskaxdeena caafimaad qabto aan ka tiro badanahay ayaa waxaa haddana dalkeena u ogolaanaa iyo dhibaato inaan ku fiirsano inaan qabyaalad ku fiirsano siduu walaalkeen haddii hore uu sheegoo kale qofka markuu dhalinyaro yahay adlisti dalkiisa iyo dadkiisa asaa bedeli kara ani waxaan aaminsanahay calanka inaan soo qaadano oo heesaha calanka aad daarno waxaa ka fiican oo ka qurux badan yani inaan dalkeena u muujino inaan dalkeena dhisan karno inaan adduunweynaha yani aan tusi karno
إنا وحنا ما إنا ده الصوماليا وحنا تارو شقة متى أنا قاعد إن الله يقول بات ونطانا ونبقى قاسة وكلنا بيرها ساس إيه كهله ونبقى حنقول جوينا أنت وهو معلومات أنت أول معلومات كتير أدريس ولا ونا كل كذا ما تجي تدور بقول بدنا أركز أسكت شويتين تذكر أو كهله سيدا سوق بحرجينا إن هذيك كنا أنت تهريب وده مش شيء عير عكده هنقول هذا قالوا يعني اسكح نيجي حد لها وحنيجي في عند تلكين إلى مال جلسين إلى تلكين جود جلسين إلى تلكين أكاديمي تكرتين تمام كدوم وقع على سن سومالي بحكبر وقبضن أدريس إلى جتهم ملينا على كل بحكبر وقبضن إلى جتهم ملينا مركي وقت ليك يعني مقابلين وحن لا يعقبوا التلكين أساعد سكره ترى يرى إلى كتكتين قبيلتي واحد يديرهم إلى كتكتين هم فقط تعطاتها أمور إلى واحد بدل كتير هل قبلني هل وقتي هل قفيا أكون كلام بدل كلام مرة عن لا يهل دلكينا سكأ بليس إلى كتسين ودلكينا في اليوم أقصد ويس تتوجد واحد جعل كاس أكون موجودة في السوشيال ميديا وحقف يعني إلى قلوبتي نكون موجودين إلى دلكينا نكون موجودين مرة عن لا يتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kolaba alake dua aino inagwa kedua irko kalaye an'a Considerando por aí que talvez me chupa Somália. Hanolas. Somália. Hanolas. Escutir sarei, aqui na tarde, a ver a